الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan wax yar u bidhaamiyo ama aan dib u laabto taariikhda qadiyadan badda ee Soomaaliya iyo kayska maanta hor yaala maxkamadda caalamiga ah maxkamadda cadaaladda caalamiga ah kayskani annaga 2012 markaan xafiiska nimiday waan ugu nimiday wuu taagnaa kayskan warqadan isfahamka ana way jirtay go'aankii baarlamaankii xukuumaddii u dambeysay ee ku meel gaarka aad wuu jiray warqado badan oo iska hor imaanaya oo la kala qorqoray way jireen markaan nimiday annagu dad khubaro ah ayaan u saarnay in la daraasiyo meeshii laga soo bilaabay ee meesha wax marayaan iyo waxa aan xaq u leenahay iyo waxa kale waxa noo soo baxday inaan xaq u leenahay dawladda Soomaaliya in ay cadkaas badda ah ee biyeeda ka maqan inay soo ceshato inay tahay si sharci darro ah oo sharciga iyo qawaaniinta caalamiga aan waafaqsanayna looga qaaday warqadii isfahamkeeda ayaan ka dacwoonay dacwad dhulkeena iyo biyaha aan leenahay ayaan dib u habeynay waxaan u sameynay khariidado cusub iyo maxaan ku yiraahdaa farsamooyinka lagu register gareeyo ama lagu diiwaan geliyo xuduudaha badaha iyo biyaha iyo dhulka la kala leeyahay iyo qaybaha ay kala yihiin biyo badeedka dal uu leeyahay waxaasaan isku dubaridnay waxaan geynay jamciyadda qurumaha ka dhacayso warqadda isfahamka hore u jirtay badanaa dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay qabaan warqadda isfahamka ama waxa MOU-ga loo yaqaano in aanu ahayn wax oo yani sharciyan ku qabanayo warqadaasi waxa markii heshiiska la saxay berigii dawladda Kenya waxay gelisay waxa oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda waxa loo yaqaan International Treaty Registry oo lagu diiwaan geliyo shuruucda ama heshiisyada caalamka heshiis caalami ah oo la diiwaan geliyay ayay ahayd annaga markaa u nimaday maxaa loo saxiixay ma khaladay ahayd yaa saxiix waxa soo dhan wuxuu ahay ma doonayo inaan dib ugu laabto laakiin warqadaasi ama isfahamkaas wuxuu ahaa sida heshiis caalami ah loo register garay dawladda Soomaaliya waan diidnay waan ka gadoonay waxaan geynay muxuu ahaa in diiwaanka laga tiro waxaan ku dadaalnay in maxaan ku raadayay la baabi'iyo waanan hor istaagnay in jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda oo sii wado qiimeyntii dhulka badda Soomaaliya Kenya loogu sameeyay markaan anagu soo dhameystiranay waxeenii oo aan diiwaan gashanay kadib khubaradeennii iyo taladoodii aan raacnay sidaas ayaa maanta ay ku timaday oo maanta